muddadii 4 sano ahayd ayaan shaqaynaynay ay howlo badan inoo qabsoomeen. 4 sano ee la soo dhaafay waxaan daawacnay ilaa iyo 30 faallo ama commentary. waxaan sidoo kale daawacnay 16 brief oo aan ugu magac darnay governance briefs. waxaan sidoo kale daawacnay 5 warbixin oo cilmi baarisyo qoto dheer ah. wadarta guud 4 sano ee aan shaqaynaynay waxaan daawacnay 51 qormo cilmiyeed. dhammaantood waxaa laga heli karaa website-keena. sidoo kale waxay ku qoran yihiin intooda badan af Soomaali af English labadaba. sidoo kale sambalo kamid ah qoraalladeena hadda banaanka yaalaan qaarkiina soo aragteen ayaa laga yaabaa koobiyo oo qaadan kartaan intii mawduucyada aad xiisaynaysaan ama isleedihiin waa jeclaan lahaydeen inaad akhrisaan. 2018 markaan hawsha bilaabaynay waxaan ku bilaabanay faallooyin kooban maadaama tiimka shaqaynaya ay koobnaayeen. mawduucyo muhiim ah oo runtii aad loo akhriyana waa ka qornay qormooyin badan. sanadkii 2019 waxaan soo kordhinay governance briefs oo daraasayn mawduuca iyo sidoo kale waraysiye iyo aan ku kabi jirnay faallooyinka aan samaynayno. 2020 iyo sanadkii 2021 waxaan awood u yeelanay inaan daraasado samayno oo aan gobolada dalka cilmi baaris ka soo samayno. sanadkii 2021 gaar ahaan waxaan daraasado waqti badan qaatay ka samaynay mawduucyada ay ka mid yihiin fiscal federalism ama federaaleynta hanaanka maaliyadda iyo sidoo kale dib u heshiisiinta galmudug midda siyaasadeed iyo midda bulsho iyo sidoo kale dimuqraadiyeynta iyo doorashooyinka dowladaha hoose ee Puntland. maadaama Soomaalida wax akhriska lagu tilmaamo qaarkood inaanay jeclayn oo dhageysiga ay ku badan yihiin bartamihii sanadkii 2019 waxaan bilownay podcast program. bartamihii 2021 sidoo kale podcastigaana magacaan ka bedelnay oo waxaan bilownay podcast lagu magacaabo maamul wanaag podcast oo arrimaha governance-ga iyo xoogga saarta. podcast-yadaas waxaan ku martigelinaa cilmi baarayaasha Somali Public Agenda oo ka faallooda mawduucyada ay daraasadaha ku sameeyaan. sidoo kale waxaan ku casdinaa siyaasiyiin iyo dad khubaro ah oo mawduuca markaas laga doodayo aqoon u leh. doorashooyinka ayaa waxay noo yihiin mawduuc aan diiradda si gaar ah u saarno. waxaan bartamihii sanadkii 2019 bilownay election series ama tixanaha doorashooyinka oo ugu talagalnay inaan diiradda ku saarno arrimaha ku xeeran doorashooyinka dalka. ilaa ay hadda 13 warbixin oo isugu jira commentaries iyo briefs ayaan doorashooyinka ka daawacnay. waxa ugu dambeysay qormo ka hadlaysa casharada laga baran karo doorashadii aqalka sare si loogu saxo doorashada golaha shacabka oo aan daawacnay bishii November 2021. waxa aaminsanahay in cilmi baaris iyo falanqeyn kaliya aanay ku filnayn Soomaaliya. sidaas darteed sanadkii 2020 waxaan sameynay 2 xarumood. xarunta koowaad oo la yiraahdo Center for Public Policy and Service Design waxa ugu talagalnay inaan xoogga ku saarno waxa loo yaqaan co-designing ama in lala qaabeeyo hay'adaha dawladda lagana shaqeeyo qorsheynta siyaasadaha barnaamijyada iyo mashaariicda iyadoo loo maraayo cilmi baaris iyo baahida shacabka lagu daraayo policies-kaas la develop garaynayo. waxaan sidoo kale sameynay xarunta tababarada si gaar ah uga shaqeysa hawsha xarunta tababarada waa in ka shaqeynaysa in sidii siyaasadaha iyo policies-ka dawladda u degan dadka ay tahay inay fuliyaan xirfadda ay u baahan yihiin looga taageero. sidoo kale centerka wuxuu ka shaqeeyaa sare u qaadista akhriska iyo qoraalka. wuxuu soo saaraa cilmi baarayaal tababaro lagu baranayo cilmi baarista iyo blog qorista ayaan qabanaa.
bishan January waxaan bilaabnay tababar ku saabsan blog writing-ka oo ay ka faa'iideysanayaan ilaa 18 dhalinyaro ah oo hadda u bilowday 8 bishan Sabtiga la soo dhaafay. Tababaradan waxaan noo qorshaysan inaan sii laba jibaarno oo aan sii xoojino insha Allah. Sidoo kale waxaan leenahay madal la yiraahdo Public Agenda Forum oo doodo wax ku oolax ka qabata arrimaha mudnaanta u leh bulshada. kulamada ay madasha qabato waxaa ka mid ah kulan bille ah oo lagu magac daray gaxwo iyo gorfeyn oo lagu gorfeeyo arrimo muhiim ah bishiiba marna la isugu imaado. Inta badan dhalinyaro ayaa ka soo qayb gashay kulamadaas. Sanadkii 2021 ilaa 17 kulan ayaan qabanay oo 5 forum taas waaweyn ay ahaayeen 12 ay ahaayeen gaxwo iyo gorfeyn. waxaan ka soo qayb galay dad gaaraya ilaa 435 qofood. laba ka mid ah forumyada aan qabanay 2021 waxaan ku qabanay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Garowe. waxaan ku soo bandhigaynay daraasado aan ka sameynay dib u heshiisiinta Galmudug iyo sidoo kale dimuqraadiyiinta Puntland. waxaan ku faraxsanahay in muddadii aan shaqaynaynay inta badan Soomaalida iyo ajaanibta akhrisata qoraalladeena noo arkeen hay'ad dhexdhexaad ah oo soo bandhigta falanqeyn miisaaman iyo talooyin wax ku ool ah. howlwadeennada Somali Public Agenda ma ahan dad siyaasadda ku jira ama ku milan ama siyaasiyiin ah. dhammaantood waa dhalinyaro ku dadaala in si miisaaman oo dheelitiran dareenka shacabkana huwan uga faalloodaan arrimaha muhiimka ah ee aan daraasadaha ka sameyno. si joogto ah ayaan ula hadalnaa warbaahinta dalka iyo kuwa caalamiga ah. waxaan sidoo kale qoraalladeena ka jeedinaa madallo kale oo caalami ah oo lagu casuumo. qoraallada Somali Public Agenda sanadihii ugu dambeeyay aad ayaa runtii dadku u akhriyay u bateen waxayna macluumaad iyo talooyin ka hela dad aad u badan oo kala duwan. ugu dambeyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo howlwadeennada Somali Public Agenda oo intooda badan aadan maqlin magacyadooda balse laf dhabar u ah howlaha kala duwan ee aan qabanno. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa golaha sare ee Somali Public Agenda oo laba xubnood ay nagala joogaan maanta iyo fellowskeena oo siyaabo kala duwan u taageera shaqadeena. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa asxaabteena aad idinkaba ka mid tihiin oo tala iyo tusaale markasta nagu beeriya kuwa akhriya qoraalladeena iyo sidoo kale kuwa nagala soo qayb gala doodaha aan qabanno. sidoo kale waxaan rabaa inaan ugu dambeyn u mahad celiyo Asal 24 TV oo runtii dhalinyaro ay maamusho ay ka shaqeyso oo noo sheegay in qoraallada madallada aan qabanno si masdawacnimo oo free ay nagu duubayaan oo lacag haddii aan u sheegnay naga diideen inay naga qaataan ayagoo ujeedkeedu yahay inay dhiirigeliyaan hay'adaha ay ka shaqeeyaan dhalinyarada. waxaan rajaynayaa inaan shaqadeena sii laba jibaarno oo aan cod u noqono shacabka Soomaaliyeed insha Allah. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.